kodan qodobada waaweyn iyo wacalaha diblomaasiyadda dabasha qiimaha fari kama qodna ee haatan xanuunka daran ee haatan soo shacbaxay ee loo yaqaano coronavirus ayaa waxa uu ku fiday adduunka hadaba dabasha qiimaha horta intaynaan gelin warbixinaha ugu badan iyo waliba xanuunkan oo dadkii ugu badnaa oo gaaray 41 qofna ku dilay hadda dalka Shiinaha dalal badan xanuunka haatan uu saameynayo kuna dhawaaqeen ayaa horta waxaan eegi doonaa horta xanuunkan taariikhdiisa iyo inta dabcan hadarto uu soo shacbaxay waxa uu geystay horta waxa uu dalka Shiinaha oo xanuunka ka soo bilowday magaalada Wuhan la yiraahdo uu ku dilay 41 qof kuwaas oo la sheegay in ay ka mid yihiin 1287 qof oo ka soo ritay gudaha dalkaasi Shiinaha ha ugu darnaato magaalada Wuhan la yiraahdo waxa sidoo kale la sheegay in 13 magaalo oo kamid ah dalkaasi uu ku fiday hadaba xanuunkan ayaa sida ay sheegayso hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay sheegtay in uu ku jiro qoyska xanuunada loo yaqaano caabuqa la yiraahdo viruska sidoo kale mararka qaar kood loo soo gaabiyo MERS-ka iyo kuwa SARS-ka la yiraahdo kuwaas oo la sheegay in ay isqaatiyaan aadanaha iyo xayawaanka waxaana la aaminsan yahay in xanuunkan uu ka daran yahay marka la eego dhinaca faafitaanka iyo sida fudud ee loo kala qaado xanuunka SARS-ka ee hore adduunka u laayay laakiin uu ka khatar yar yahay in marka ay timaado dhimasho ay uu dad badan u dhinto ama dad badan ay u dhintaan balse waxa arintu la yaab noqotay kadib markii la ogaaday in xanuunkan uu yahay mid si aad u fudud loo kala qaadi karo isla markaana waxa kale oo masiibo sii noqotay baa la yiri in xanuunkan 14 maalmood gudahood qofka uusan ka muuqan karin laakiin marka uu xanuunku 14 maalmood qofka jirkiisa ku jiro uu waxyeello aad u weyn u geysan doono balay unugyada dhinaca difaaciyada qofka iyo inuu sidoo kale keeno in neefta qofka qabato iyo ugu dambeyn inuu isku bedelo oo fureen aan qofka wax laga qaban karaynin mararka qaar kood iyadoo oo la sheegay in ay taasina khatar weyn ay tahay haatan xanuunka ayaa la sheegayaa in uu sii baahayo ama adduunka si xoogan ugu sii baahayo hadaba dalalka ilaaha deerto xanuunku uu ku habsaday ama xanuunkan sheegtay ayaa ah kuwa markaas tiradooda soo tarayso tan iyo inta xanuunkan uu soo batay dalalka hadeerto ama deegaanada laga soo sheegayo waxa kamid ah ama hadeerto uu cusub yahay dalalka ay kamid yihiin Hong Kong, Thailand. Hong Kong waxa laga soo sheegaya ama jasiiradda Hong Kong waxa laga soo sheegaya 5 dhacdo inay ama 5 qof ama 5 kiis inuu soo ritay Thailand 5 kiis Australia 4 kiis Faransiiska 3 Japan 3 Malaysia 3 Singapore 3 Taiwan 3 Mexico 3 labo South Korea 2 Mareykanka kiiskii labaad ayaa laga soo sheegay magaalada Chicago Vietnamna 2 halka Nepal dadka ilaahay laga soo sheegay isagana hal kiis haatan waxay ka dhigan tahay in adduunka qaaradihiisa oo dhan marka laga reebo qaaradda Afrika uu xanuunku si baahsan u gaaray ayadoo oo la sheegay in ay dalalka qaarkood ay galeen heeganka ugu sareeyay dalka Mareykanka ayaa waxa uu garoomada waaweyn oo dhan isugu keenay dad aad u badan oo heegan u ah in xanuunka la tacaalaan waxa la arkay in dadka dalka Shiinaha ka imaanaya gaar loo soo cayay marka laga soo degayo magaalooyinka waaweyn oo ay kamid tahay Chicago ee kamid ah magaalooyinka laga soo galo dalka Mareykanka taasoo aad ku arki kareysay markaasi iyadoo lagu dhajiyay calaamado waaweyn garoonka isla markaan loo sheegay hadii aad ka timid Wuhan iyo hadii aad ka timid dalka Shiinaha laftiisa in aad qabsato line gaar ah taasoo ay tuman yihiin ciidamo si gaar ah u tababaran oo dhinaca caafimaadka dadka markiiba la cararaya ama markaasi baaritaan degdeg ah ku sameeynaya iyadoo la iska hubinayo si kastaba ha noqotee taasi ma aysan joojin in dadka laga celiyo xanuunsanaya gudaha Mareykanka iyadoo qofka labaad rol soo sheegayo magaalada Wuhan xanuunka ka soo bilowday ayaa la sheegay iyadana in laga dhawaaqay isbitaal degdeg ah in halkaas laga furi doono muddo 15 maalmood ayaa la sheegay in isbitaal casri ah laga dhisi doono kaasoo qaadi doono in ka badan baalay 1300 oo sariirood oo ay dawladda dalkaasi ku dhawaaqday sidoo kalena 56 milyan oo qof oo reer Shiinaha ayaa go'doon lagu soo rogay iyadoo magaalooyinka ugu badnaana ay dawladda dalka Shiinaha ku dhawaaqday in ay go'doonsan yihiin aysan jirin diyaarad gali karta iyo cid mid ka soo bixi karta sidoo kalena waxa la daabulay ciidanka dalkaasi in ay arinta ka hortaga si kasta ay noqoto arintan ayaa mid rabaani ah isla markaana aadanaha dadaalkooda moogi ay adag tahay in la xakameeyo maadaama durbaba ay ku fiday adduunka oo dhan ilaahay haynaga hayo xanuunkaas isla markaana dadka Soomaalida ah ee booqanaya dalka Shiinaha oo ugu daran tahay meeshaasi waa inay aad iyo aad u taxadiraan runtii isla markaana ayaguna ay naftooda ilaaliyaan hadii ay iska shakiyaan ay runtii ilaaliyaan inaysan wadanka kula noqon xanuunkaas oo aysan dad kale oo masaakiin
oo aan dowladeena oo runtii dowlad aan awoodi karin inay la tacaasho arrintaas oo kale aysan dhexgeenin ama dadkaasi ay aad isku hubiyaan waliba qof kasto ka maarmi kara hadda inuu Shiinaha aado gaar ahaan deegaanadaas magaalooyinkaas Shiinaha ee adeerta ay ugu daran yihiin waxaan rajaynayaa inaysan aadin hadaysan degdeg uusan jirin oo ku riixaya waa inaynu runtii aad iyo dadkana u wacyigelinaa waliba markan oo kale dawladda qiimaha leh halka nagala socotaan waa wararkii warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo weyn bay noo soo socda dalka Suudaan ayaa waxa uu asaguna ka soo kabanaya colaad dalkaasi ka jirtay iyadoo dalka Suudaan